Nin wanaagsan oo Alla ka cabsi badan ayaa markii uu guursaday naagtiisa waxa ay bilowday in ay ka cabanayso madax xanuun joogto ah. Dhakhtarka ayaa u diray baaritaano iyo raajo maadaama uu uga shakiyay cudur khatar ah, waayo astaamahan waa kuwa kansarka lagu yaqaano. Waa ay soo baxeen waxa ayna yimaadeen goobta baaritaanada iyo raajada. Hooshii uu dhakhtarka u diray markii ay qabteen ayay soo baxeen. Inta ay wadada soo socdeen ayaa ninkii waxa uu arkay nin oday ah oo wadada dhexdeeda ku iibinaya liin iyo ansalaato. Gaariga ayuu ka soo degay, odayga ayuu u yimid wuxuuna ku yiri meeqa ayaad iibinaysaa. Markii uu ogaaday qiimaha ayuu lacag ahaan u siiyay inta uu iibinaya labalaabkood. Odaygii wuxuu yiri lacagtan way badan tahay, anigana sarif ma hayo. Ninkii wuxuu yiri orod meesha kuugu dhow ka soo sarifo, inta ayaan kugu sii sugayaa. Odaygii markii uu baxay ayaa ninkii gaarigiisa soo raacay. Odaygii markii uu soo laabtay ayaa waxa uu arkay alaabtiisa oo sideedii ah iyo ninkii oo iska tegay. Markaas ayuu gartay ninkan inuu ku sadaqaysanayo lacagtan. Waa uu iska ooyay, kadib waa uu u duceeyay wuxuuna yiri Allaha ku xafido wiilkaygiyow, reerkaagana Allaha ka xafido wax walbo la neceb yahay, ciriiri walbana Allaha idinka saaro. Inta ay wadada soo socdeen ayaa zawjadiisa la ilmeysay habdhaqanka wanaagsan ee ninkeeda iyo u dhimrinta uu u dhimrinayo masaakiinta iyo fuqarada. Waana arrin ay horay ugu taqaanay, waxayna ku tiri markii aan arko adigoo caawinaya masaakiinta iyo fuqarada, waxaan soo xusuustaa qowlkii rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo ahaa waxaa la idinkugu gargaarayaa oona la idinku irsaaqayaa fuqarada iyo masaakiinta sababtooda, iyo hadalkii kale ee rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo ahaa acmaasha waxaa ugu fadli badan qof mu'min ah oo la farxad geliyo. Ninkii waa uu dhoola cadeeyay, kadib guriga markii ay yimaadeen ayuu naagtiisa ku yiri waxaan dareemayaa niyad sami, waxaana Alla ka rajaynayaa natiijada baaritaanada iyo raajada in ay noqon doonto mid lagu farxo, ee niyadda kheyr u sheeg, waad caafimaadaysaa. Zawjadii waxay tiri waan rumaysanahay qadarta Alle, wax walbo Alla inoo keenana kheyr ayay noqonayaan. Xilligii natiijada markii la gaaray ayaa ninkii waxa uu soo doonay natiijada, waxa ayna noqotay mid lagu farxo, waayo naagtiisa waa ay nabad qabtaa, wax cudur ahna ma qabto. Aad ayuu u farxay, naagtiisa ayuuna wacay si uu ugu bishaareeyo. Kadib dhakhtarka ayuu soo aaday. Dhakhtarkiina markii uu arkay natiijada waa uu la yaabay, wuxuuna yiri waxaan ku kalsoonahay in ay jirto duco oo uu Ilaahay idinkaga celiyay musiibada. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Fadlan haddii aad ku cusub tahay kanaalkan Tarjumaad, subscribe saar, gambaleelkana riix si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub ee aan soo gelino.